iyagana oo shaqada inay sii laban laabaan ayay ahaanaysaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta mahadcelin ballaaran ayaan idin hayaa bini aadmi baynu nahay waa la isku khaldami karaa waa la isku gafi karaa wixii khalad iga dhacay waa wax xagga shaydaankii ka yimid dhinaca wax aniga iga yimid maaha haynu saamaxno khayr baan idin rajaynayaa halkaa ka sii wada karti aqoon baan idinku ogaa وماسيهاي ماري هوري تي في قرنكا خضر حسن علي قاس رنتي دردارة في عبو كتغي سامحة يور حنانتنا ووحي لهاي قرآن كيسا كوشيغي كأنه ولي حميم وكلمة هذه آدو في عن رنتي شغالها دمان تودنا رنتي وانوكا قدون إن ليسور حادو وإلهي درتي عدي وحكا لترسيني سيبا ليسو سامحو وحقبتكو سوقبتين إلهي كابال مريو waxbaan ka ogaa runtii oo kamaradaha uu sheegayo studio-ga kamarada waxa lagu duubaa ma oolin waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan shahaada jirta oo maariyaal guddoonsiin doono laakiin markii xilka ay kala wareejiyaan baynu ka dhigi doonaa iminka waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan maariyaha cusub cabdi cali mahdi macalin cabdi cali mahdi Well, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka hore Ilaahay baa mahad leh. Ilaahay baa inaga mudan in goor kasta, waqti kasta iyo marxalad kasta inuu ku jirnaba aynu u mahad noqno. Allah inaga dhigay ummad islaama, Ilaahay inaga dhigay ummad ka shaqeysa wanaaga iyo samaha. Inta markaan ka soo gudbo nin aanu saaxiib ahayn oo wasaaradana wasiirka ahaa Cabdullaahi Geeljire loo oran jiray ayaa wuxuu yiri wasaaradda aad u sii socotaa anugu wasiir ahaan waagan joogay waxaan ku tilmaami jiray inay tahay dugsi sare anugu sidii halkan horeba looga sheegay macallin baan ahaa macallimiintii thank you halkan taagan runtii waa niman dhalinyaro aan arkayo oo la mida kuwii aan wuxuu dhigi jiray waxa kaliya oo ay kaga duwan yihiin oo kaliya kuwaas classka fadhiyay waa kamaradaha badan ee ay sitaan inta markaan ka soo gudbo oo aan u soo noqdo dulucdii khudbadayda aan ugu talagalay maanta inaan halkan ka jeediyo runtii mas'uulka xilka la wareegaya inta badan wax badan ma sheego laakiin mas'uulka xilka wareejinaya ayaa inta badan wax badan sheegay kana hadla waxyaabihii badnaa ee soo qabtay sidoo kale sheegay runtii waa nin aanu aad u wada shaqeynay muddo badan arrimaha organizationada ama private sectorska aanu ka soo wada shaqeynay aanu jaarna ahaan jirnay muddo badan inta markaan ka soo gudbo horta marka hore mudanayaal iyo marwooyin dhammaan golaha wasiirada ee madasha ku sugan ee ugu horeeyo wasiirka wasaaradda wacyigelinta dhaqanka iyo warfaafinta mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir oo runtii aniga wasiirna maanta ayaa macallinkaygiina ahaan jiray waqtigii aan halkan joogay waxaan kaloon u salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Marwe Shukri Xariir Ismaaciil sidoo kale waxaan salaamayaa isagana wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka mudane Axmed Cadare waa nimankii isaguna aanu runtii xagga wada joognay in badanna aanu soo wada shaqeynay aad baad ugu mahadsantahay Mr. Cadare warbixinta ayaree fiican aad iga bixisay waxaan jecelahay isagana inaan xuso oo salaamo maarayihii hore telefishinka qaranka mudane Khadar Xasan Cali Gaas ahna la taliyaa gaarka ee madaxweynaha arrimaha saxaafadda sidoo kale waxaan salaamayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case waxaan kaloo salaamayaa maarayo ku-xigeenkii telefishinka qaranka Mr. qaasin laftigiisa xaggaasaan wada joognay waan inaanu aqoon badan isaga laftigiisa aan isu leenay waxaabad moodaaba wasaaradda gebigeedaba inay ku dhan yihiinba ama madaxdeeduba ay u badan yihiinba reer UK taasina wax kale maaha waa isjihaadka iyo halganka aanu la soo galnay xukuumadda kulmiya ee imka talada haysa waa bayback weeye inta markaan kasoo gudbo dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gaar ahaan shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaalidu waxay ku maamaadaa
geel jiruu geel ugu wada jiraa haddana wuu kala jiraa iyagoo ay dhammaan ka wada tirsan yihiin shaqaalihii wasaaradda haddana waxaan si gaara aan u salaamayaa dhammaan shaqaalaha telefishinka qaranka oo runtii qaybtan anigu aan la shaqayn doono u bandaan doono haddii aan loo yidhaahdo waxaan sidoo kale iyaguna aan salaamayaa bahweynta saxaafadda somaliland oo hogaaminayo guddoomiyihii solta mr xuuto aad buu u mahadsan yahay isaguna intaan markaan dhammaantiin waxaan idinku salaamaya marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed siiraanyo oo isagu xilkan ii magacaabay abaal weynna runtii aan ugu hayo waxaanan leeyahay mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay ilaahayna waxaan ka baryayaa in xilka aad qaranka igu dhiibtay ilaahay igu asturo iguna ilaaliyo sidoo kale waxaan iyadana u mahadnaqayaa marmada koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland marwo aamine maxamuud jirde iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda meel kastoo ay joogaanba kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan iyagana si gaara ugu mahadnaqayaa cid kasta oo si guud iyo si gaaraba uga soo shaqaysay agaasinka xafladdan runtii aadka u qurux badan oo runtii shaqo badan soo qabtay oo runtii shaqo muhiima soo qabtay runtii sharaf weyn ayay tahay inaan noqdo mas-uulkii shanaad waa sidaan researchka markaan sameeyey aan ku ogaaday inaan noqdo mas-uulkii shanaad ee loo magacaabo xilkan muddadii telefishinka qaranku jiray wixii ka horeeya I don't know iyo waqtigii la asaasay oo hadda laga jooga muddo aad u fog oo runtii u qabsoomay gulooyin aad waaweyn tan iyo muddadaasi waxyaalaha uu TV-ga qaranku qabtay waxaa idinla wadaagay oo runtii idin sharaxay maareeyihii hore telefishinka qaranka ahna la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha arrimaha saxaafadda Mr. Khadar Xasan Ali Gaas waxaanan ku ammaanayaa meesha uu maanta soo gaarsiiyey TV-ga qaranka oo runtii la taaban karo amba la arki karo runtii waa arrin qoro isku dhiib ah oo kala ah maareeye amba mas-uul kasta oo xil loo magacaaba meel ayuu soo gaarsiiyey TV-ga qaranka sideedaba qofka aadamiga marka xil loo dhiibo way yar tahay dadka inta badan dib u dhac ku sameeya laakiinse always inta badan horun bay u sii dhaqaajiyaan loo magacaabo meel ayuu soo gaarsiiyey telefishin qaranka gaar ahaan waxaan ballan qaadayaa inuu heerka uu maanta joogo meel fiican aan ana maalintayda xilka ku wareejin doono haddii aan loo yidhaahdo amba ilaahay la garab qabto hawsha qaran ee madaxweynuhu iigi maday waxaan uga faa'iideyn doonaa aqoontayda iyo waayo aragnimadayda maamul ee aan u leeyahay waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sidii aan horumar uga gaarsiin lahaa qaybaha kala gedisan ee TV-ga qaranka hawlaha inoo yaallaa runtii amba yaalla wasaaraddani amba telefishin ahaan waa hawlo badan oo waxaan ugu kala qaaday amba aan isleeyahay aad u kala qaadid haddii waa loo yidhaahdo long term strategy ambaba arrimaha fogfog iyo short term strategy in kuwa sokaba waxaase hubaal ah in arrimahaas aan soo sheegay idinka la'aantiin shaqaale ahaan iyo wasaarad ahaan amba haadaan madax amba shaqaalo hoose ahaadaane inaanay runtii suuro gelin haddii aynaan taageero buuxda igu siinin sidii aan uga madhidhalin lahaa himilooyinka aan maanka ku hayo inaan qabto kuwaasoo ay ka mid yihiin number 1 inaan si cadaalad ah aan ugu shaqayn doono dhammaan shaqaalaha TV-ga qaranka meel kasta oo ay joogaanba haddaan kuwa gobolada jooga haddaan kuwa xarunta ku sugan haddaan kuwa wadamada dibadda ka soo warramaya haddii aan si kale idinku dhigo qaybaha kala gedisan ee telefishinka haddaan farsamo yaqaanada haddaan editorska haddaan wariyaasha haddaan program makerska dhammaan qaybaha kala duwan ee telefishinka waxaan idinku ballan qaadaya inta ilaahay ka sokaysa inaan si daacada oo hufan aynu wada shaqayn doono number 2 inaan mudnaanta koowaad siin doono shaqaalaha TV-ga hadday tahay ka warhayntooda xaaladooda hoose iyo tayeyntooda amba quality-ga ay leeyihiin iyo horumarintoodaba dabcan waxa ugu wanaagsan wax la qabto adiga oo effort geliya human resourceska amba qofka aadamiga wadamada reer Yurub waxay sidoodaba horumarka ku gaareen arkaysaan waxa weeyaan qofka aadamiga ayay qiimeeyaan oo ay qadariyaan adduun waxay hayaanna way geliyaan si uu productive u noqdo oo uu wax u soo saaro inaan curin doono xiriir uu TV-gu la yeesho dalalka aynu saaxiibka nahay kuwa gobolka iyo kuwa caalamkaba haddii aan loo yidhaahdo inaan ku dadaali doono inaan tayeyno barnaamijyada wararka iyo baahinta uu sameeyo TV-gu oo dhan si dadka ku xidhan uu kor ugu qaadna aqoontooda
iyo ku xidhnaanshiyaha telefishinka sideedaba telefishinada caalamku waxay u isticmaalaan si camal iskuul oo kale ah waxbaa laga bartaa waxbaa dadka laga wacigeliyaa dadka lagu hanuuniyaa markaa waxaan rajayn doonaa insha allah bismillaahi kariim inaynu mujtamaca reer somaliland meel kastay joogaanba ayna daawanaya inay wax naga faa'iidaystaan oo ayna bartaan inaan ku dadaalo doono haddii aan loo yidhaahdo inaan dhisno isla markaana tayayno xiriirka nidaam xafiiseed ee gudaheena sideedaba organizationka soo jira wuxuu leeyahay nidaam uu ku shaqeeyo amba habsamo socodka shaqadiisa waxaan ku tala jiraa in aynu u shaqeyno si official ah oo xiriir wanaagsan oo aynu isweydaarsanno documents rather than inaynu wada hadallo waxyaabahaas oo runtii badan aan soo sheegay iyo qaar kaleba waxay ugu jiraan qorshaha inaan la soo shaqo galo haddii aan loo yidhaahdo Saturday ambaba haddii aan loo yidhaahdo maalinta Sabtida arrimaha aan qaban doono maaha oo kaliya inta aan halkan ku xusay oo kaliya waxaan se ballan qaadayaa in intan in ka badan insha allahu tacaala aan qaban doono waxaanan idinku xasuusinayaa in qof kasta oo shaqaale ah uu xil iyo mas-uuliyadii ay ka saaran tahay gudashada hawsha uu qaranka u hayo not only anigoo kaliya amba wasiirka oo kaliya amba wasiir ku-xigeenka oo kaliya laakiinse idinka laftigiina waxa idinka saaran mas-uuliyad xilkan aa qaranka u haysaan sidaa daraaddeed anugu shakhsiyan ma isticmaali doono ereyga ah aniga laakiinse waxaynu isticmaali doonaa intaan idinla joogo haddii aan loo yidhaahdo innaga waayo inta badan kelmadda aniga waxaa isticmaala wadamada laga isticmaalo dadyowga dictatorska ah ee aan talada baahin anugu se insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaynu talada wadaag iyo wada shaqayn badan aynu wada yeelo intaan meesha joogo waxaan iyagana sidoo kale aan ugu mahadnaqayaa dhammaan inta iyaguna maanta shaashada TV-ga naga daawanaysa meel kasta ay joogaanba ugu dambeyn waxa hubaal ah inay aanay suuroobayn idinka la'aantiin qodobadaasi aan soo sheegay oo dhan haddii aynaan u wada shaqayn si wada jir ah amaba teamwork aynaan as a teamwork haddaynaan u wada shaqayn runtii anigana waxba ay suuroobi maayaan wasiirka amba wasiir ku-xigeenkana waxba u suuroobi maayaan marka sideedaba meesha lagu arko inay teamwork tahay oo meesha keenta horumarka iyo productive-ka waana runtii waxaan aaminsanahay shakhsiyan inaad tihiin idinka kuwa kaga dhammayn doona amaba riyadan aan wato kuwa u bedeli doona run shaqaalaha TV-ga haddaad tihiin guul iyo gobonnimo ayaan idin rajaynayaa bahweynta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka qaranka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay maareeyaha TV-ga qaranka Soomaaliland aan ku soo dhaweeyo intaanu xilka u kala wareejin wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cugsaad jecel idin la soo dhaweysaan madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka warfaafinta shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha Soolja iyo mas'uuliyiinta kale ee goobta ku sugan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu umaan kicin anigu inaan hadal badan idhaahdo laakiin marka hore waxaan leeyahay haddii uu maalmahan tashuus jiray iyo haddii maalmahan shaqaalaha qaarkood laga yaabo inay hagahaga yeesheen saamaxnaakum beyj cusub baynu bilaabaynaa hagahagadaasina way iska bii doontaa fooshu waa wax xanuun kulul fooshu marka maareeyaa cusub baa dhalanayayoo fooshii baynu isqabannay marka radiidkaa iyo xanuunkiisa waynu iloobi doonaa shaqo cusub baynu bilaabi doonaa maareeyaha hore aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda warfaafintu waa wasaarad aad u ballaadhan maareeyaha iyo wasiirka oo quri ma joogaan waxaa jooga agaasimaha guud ee wasaaradda
waxaa jooga agaasimayaal waaweyn oo wasaaradaha kale ee dalka agaasime waaxeedyo aynu leenahay ayaa agaasimayaasha guud ee dalka qaarkood wasaaradooda hawsha ay hayaan ay ka ballaaran tahay oo shaqaalaha hoos yimaada ay ka ballaaran yihiin waxaa jooga dawan guddoomiyaheeda waxaa jooga soolna guddoomiyaheeda waxaa jooga ninka shaqaalaha ugu badan xukumo oo agaasimaha waaxda farsamada ah waxaa jooga fanaaniintii oo dhan ee qaranku lahaa waaxdaasaa joogta dhammaantood tashuush kama dhicin muranno kama dhicin maareeyaha tv-ga qaranka iyo wasiirkana tashuush kama dhicin ismay qaban geel yaadhi ay leeyihiin iskumay haynin waa fooshaasun fooshaa ninka cusub ee imanayay ayaa markaa keenaysay inay xanaftu timaado marka khadar waxaan leeyahay saamaxnaakum intaasaan halkaa kaga gudbayaa waxaan doonayaa inaan sheego wasaaradda warfaafinta waxaa jooga iminka maanta aynu ka hadlaynaa tv-gan 230 qof oo shaqaalaa 230 qof intaa in leegina waxay joogaan idaacadda tiro kalena waxay joogaan waaxda fanaaniinta oo 100 tiro kalena waxay joogaan dawan waxaan leeyahay halkan waa meesha ummadda Somaliland oo dhammi ay sugayso waa meel laga sugayo aqoon waa meel laga sugayo inay ummadda ku abuurto wadaniyad waa meel laga sugayo inay ummadda u tilmaanto dariiqa nabadda waa meel laga sugayo inay ummadda u tilmaanto dariiqa dhismaha iyo dal la abuurayo oo la dhisayo waa meel la doonayo inay maskaxdeedu koronaato waa meel la doonayo inay ummadda ku hagto dariiqa dimuqraadiyadda waa meel la doonayo inay ummadda u ilaaliso dhaqankeedii hore waa meel la doonayo inay ummadda u ilaaliso diinteeda waa meel la doonayo inay abuurto bulsho caafimaad qabta oo maskax ahaan fayow waa meel la doonayo inay dadku ka bartaan dhalinyaradu sida shaqada loo doonto iyo marka la shaqaynayo sida loo shaqeeyo iyo akhlaaqda wanaagsan ee uu qofku ku gaari karayo guusha uu ku riyoodo ee uu doonayo inuu maalin soo taabto waa meel la doonayo inay noqoto iskuul sidaa awgeed fulayga iyo qofka aan ku kalsoonayn aqoontiisa ayaa had iyo jeer ka fogaada dadka aqoonta leh wasaaraddan waxaynu soo ururinay oo maanta inala fadhiya intoodii badnayd rag iyo dumarba dadkii waayeelka ah ee mihnada saxaafadda magaca ku yeeshay ee waayo aragnimada ku lahaa ee aqoonta lahaa si ay iskuulka macallimiin uga noqdaan dhallinyaraduna u noqoto qaar xilka noocaasee laga doonayo gudan kara waxaynu soo ururinay raggaa waaweyn oo intaynu u yeedhnay aynu ku nidhi warbal aqoontiinnii toosh ku iftiimiya oo wasaaraddan aanu ku haynaaye qiimeeya waxaa khalad ku aragteen waxaa sax ku aragteen iyo waxa aad tilmaan bixinaysaanba waxay diyaariyeen buuggaan halkaa ku hayo oo 100 beja buuggaasaynu haddaynu ka faraxalanno oo aynu waxa uu tilmaamayo oo qura baranno oo aynu waxa uu tilmaamayo oo qura qabanno oo aynu waxa uu tilmaamayo keliya ka leexanno ayaan hubaa inaynu waddo iftiin leh ku soo dhacayno dadkaa waxaa ka mid ah yunis cali nuur safiya cali yuusuf cabdilaahi aadan wayab xuseen cali nuur mijir qaadi weji
khadar maxamed cakulle siciid aadan cige nimco maxamuud khadar yare oo xoghayn u ahaa xagar maxamed siciid faysal farfadleh xasan maxamed yuusuf deeqsi sayid cumar kadawan maxamed cabdiraxmaan jarmal xasan jaamac cawaale cabdirasaaq halkanaan ku arkayay mar dhoweyd miyuu kacay ya wuu joogaa ciro shabeel kama gaari karayo laakiin intaasoo dhammi buuggan may diyaarin buugga waxaa diyaariyey 10 nin ee waaweyn ee hore kuwan ayaa ahaa kuwa warbixinta siinayay ee la shaqaynayay waxaan doonayaa inaynu jiilkaasi oo dhammaantood siinayana jiilkii bedeli lahaa ee la shaqayn lahaa waa kuwa halkan fadhiye inaynu midba mid ku kabno oo ninkaa aynu raacinay kala hadho wuxuu aqoon hayaan ee ay halkaa la fadhiyaan iyo khibraddayna kala hadhaan waxaynu doonaynaa dariiq noocaas aynu iftiimino wasaaraddanna intii ay somalilan jirtay 14 wasiir baa iska soo beddelay 14 wasiir ayaa iska soo beddelay wasiirkii ugu horreeyey wuxuu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya cismaan aadan dool quulle maxamed warsamaa ku xigay muuse inji jaamac khayre quraab cumar meygaag xasan mawliid abiib boobe waran cadde cabdilaahi maxamed ducaale xaabsade kuma geeljire ina xaaji daahir oo ahaaba wasiirkii ugu muddada dheeraa soo saamu hayn